إسرائيل. magaca Israa'iil wuxuu ka kooban yahay laba eray sida lagu sheegay kitaabka Tawraat. Israa oo cabdi ah iyo Iilo Allah ama Ilaah. markii la isku qabto waa Abdullah. magaca Israa'iil lagu naanaysi jiray Nabiyullah Yacquub alayhi salaam sida Ilaah uu ku sheegay Quraankiisa. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. halkan waa janalka Rafiiq al-Macruuf. tirada dadka Yuhuudda waxaa lagu qiyaasaa 8 milyan oo qof. 75% waa Yuhuud, 20% waa Carab, halka 5 ay yihiin jinsiyado kala duwan. luqadda Yuhuudda koowaad waa Cibriga, halka tan labaad Carabiga tahay. waxaa lagu tiriyaa dowladda Israa'iil inay tahay dowladda ugu isticmaalka badan khudaarta iyo waxyaabaha macmacaanka ee xalwada ay ku jirto. hilibka ayaa mamnuuc ka ah dhammaan munaasabadahooda. Mareykanka ayaa ballaariyay taageerada dhinaca militariga uu siinayo wax lagu magacaabo dowladda Israa'iil, taasoo u gaartay $20 bilyan sanadkii 2009. tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu, waxay sheegtay wasaaradda difaaca Israa'iil inay burburiyeen 4,450 deegaanada Falastiiniyiinta, taas oo la waafajinay sida uu sheegay heshiiskii 1994 ee Geneva ee ahaa nabad dhulku bedelashada. burburinta la burburinayo deegaanada Falastiiniyiinta ayaa waxay tahay in dhammaan laga dhigo dadka Falastiiniyiinta dad qaxooti ah, taasoo isku ballaarnay Yuhuudda dhammaan dhulka Falastiiniyiin. badeecada looga keenay Mareykanka Israa'iil ayaa waxa uu gaadhay $23 bilyan, taas oo la waafajinay ganacsiga xorta u dhexeeya labada. heshiiska noocan oo ganacsiga ay keeneen khubarada Israa'iiliyiin taasoo ay kaga gol leeyihiin waxyaabaha Israa'iil ay soo saarto in Mareykanka uu u sugnaas oo Israa'iilna ay ku yeelanayso dhaqaale. sanadkii 2009 gargaarka Mareykanka uu siiyay Israa'iiliyiinta ee lagu bixiyay qaxootiga Israa'iil iyo arrimaha bini'aadanimada waxa uu gaadhay $40 bilyan oo qayb ka ah qaxootiga Israa'iiliyiinta ee ku nool dunida in dib loogu celiyo waddanka Israa'iil. intii u dhaxaysay 2016 waxaa la gaarsiiyay waddanka 50,000 oo qof. sanadkii 1948 Yuhuudda ku noolay dhulka Falastiiniyiinta waxay gaarayeen 100,000 oo qofood, taas oo ay degnaayeen hal magaalo oo Tel Aviv ahayd. maanta oo laga joogo 70 sano marka dhulka Falastiiniyiinta Yuhuudda xoog ay ku qabsatay, waxay haystaan 14 magaalo, taasoo magaalada ugu yarba ay ku nool yihiin 100,000 oo qofood, halka 6 magaalo oo ka mid ahna ay ku nool yihiin 200,000 oo qofood magaaladiiba. magaca Muusa waxaa loola jeedaa waa magac Cibri ah, taasoo macnihiisu uu yahay limuusa tacaalibad. macnaheeduna wuxuu yahay hay'adda muhaajiriinta sharciga ah, waana mid ka mid ah hay'adaha sirdoonka ugu xooggan ee Israa'iil ay leedahay. waxaana lagu tiriyaa waa midda ugu xooga badan sirdoonada ka jira dunida, waana laanta ka howlgasha dunida, taasoo la aasaasay sanadkii 1937. sirdoonada ugu khatarsaneyd ee soo martay Muusaad waxay ahayd gabar ku dhalatay waddanka Urdun, taasoo la dhihi jiray Amiina Mufti, waxayna ahayd sirdoonada ugu khatarsaneyd. waxay sureen sawirkeeda bilada ugu qaalisan ee sirdoonka. Israa'iil waa dowladda kaliya ee mamnuucday haweenka iscaateyn, taasoo u goysay cabir go'an, qof walbana looga baahan yahay inuu cabirkaas qaato. waxay Israa'iiliinta la wareegeen inta u dhaxaysa Jabal Saytuun iyo qabuurta Yuhuudda, taasoo ay aaminsan yihiin in Ilaah markuu dadka soo nooleynayo uu ka bilaabi doono dowladda Israa'iil ayaa lagu tiriyaa in ay tahay dowladaha ugu lacagsinta badan dadkeeda, taas oo ugu yaraan qofkiiba qaata $100,000 sanadkiiba. dadka ugu caansan ee Yuhuudda ayaa waxa ay yihiin kuwa jila aflaanta dhanaanta, kuwaas oo ay uga gol leeyihiin in halkaas ay ka soo noqdaan. waxay Israa'iil iskala weyn tahay heshiiska xakamaynta hubka, taas oo magaciisu uu ahaa CWC iyo SWC, iyadoo ay jirto dowladaha Yurubta inay u wada hoggaansameen Mareykankana uu ku jiro, iyo heshiiska mamnuucidda hubka atomikada ee NPT. Israa'iilna waa dowladda kaliya ee haysata hubka atomikada, taas oo si toos ah loo sheegay. taariikh ahaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu ka soo jeedaa maleeshiyaadka Argon, kuwaasoo Ingiriisku u aqoonsanay inay yihiin argagixiso intaan la dhisin dowladda Israa'iil. wadaadka ugu weyn ee Israa'iiliinta waxaa loo yaqaanaa Cofaadia Yusuf, wuxuuna aasaasay xisbiga saddexaad ee ugu xooggan ee Israa'iiliinta. sidoo kalena wuxuu yahay wadaadka ruuxiga oo go'aanka ugu dambeeya ee dalku uu qaato isaga uu ka go'o haddii Falastiiniyiinta dagaal lagu qaadayo haddii kaleba. dowladda Israa'iil waxaa mamnuuc ka ah in dadka Israa'iiliinta aanan haysiinta Yuhuudda in guri laga kiriyo ama dhul laga gado. taargada gawaarida ka shaqeeya Israa'iil iyo dhulka xoog lagu haysta ee Falastiiniyiinta waa kala nooc si loo ogaado kuwa Yuhuudda iyo kuwa kale. jaamacadaha ku yaala Israa'iil waxay bas wanaagsan uga jiraan jaamacadaha adduunka. 6 jaamacadood oo Israa'iil ku taalo waxay ku jiraan 100 jaamacadood ee ugu wanaagsan ee Aasiya. lacagta gargaarka Mareykanka uu siiyo Israa'iil ayaa waxaa lagu qiyaasaa $5 bilyan inay tahay, taasoo haddii la isku soo dardaro kaalmada uu siiyo dalalka Afrika iyo tan Israa'iil isku mid yihiin.
Israa'iil waxay u go'aamisay biyaha 85% inay dadka Yuhuudda Israa'iiliinta ay leeyihiin halka 15%na Falastiiniinta dhulkooda xoog lagu haystay leeyihiin. Xarka Israa'iil ayaa waxa uu dhigay qofka inuu ciidanku ku soo beeri karo da'da 18 marka uu soo dhaafo taas oo dhammaan ciidanka ay ka wada weyn yihiin da'da 18 marka ay dhameeyaan dugsiga sare 2 ilaa 3 sano waxay ku soo qaadanayaan ciidanka ardayda haweenkana waajib ay ku tahay. Yuhuudda ayaa waxay isku daydaa inay burburiso Masjid al-Aqsa iyo qaybta sare ee jaalaha dhowr jeer oo isxigxigtay Yuhuudda waxay isku dayeen inay burburiyaan masjidka iyagoo ka soo qaday qaybta hoose. Maxkamad ku taala dalka Israa'iil waxay sanadkii 1997 go'aan ay ku soo saartay in Maxamed loo soo sawiro sida doofaarka oo kale lacnad Allah ku rida ayaga. geedka loo yaqaan budurka kaasoo cimrigiisa gaaray 2000 sano waxaa soo saaridiisa ku guuleystay Israa'iil sanadkii 1963 kaasoo markii ugu horeeyay la abuuray sanadkii 2005 isagoo la filay inuu gaari doono cimrigiisa 1800 sano. hudhud waa shimbirka Israa'iil ee u aqoonsan tahay wadaniga. Hongorium waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay aasaasay dowladda Israa'iil wuxuuna noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay Yuhuud ma ahayn mulxid ayuu ahaa. baasaboorka aad u jeedid waa baasaboorka Pakistan waxaa ku qoran waddan walba lagu aadi karaa marka laga reebo Israa'iil. barbaroonidii ugu weyneed ee adduunka waxaa soo saaray Israa'iil waxaana suuqyada adduunka la soo bandhigay sanadkii 2013. 44% meelaha la isku diiwaan geliyo ee dowladda Israa'iil waxaa ka shaqeeya dumar. ugu dambeyntii Israa'iil gaar ahaan caasimadeeda Tel Aviv waxay ku jirtaa caasimadaha ugu caansan ee adduunka taasoo ay ku soo bandhigaan waxyaabaha mahrajaanka ah sanadkiiba taasoo ay u soo daawadasho tagaan dad badan oo adduunka uga imaan. Mahrajaanka ugu horreeyay waxaa lagu qabtay sanadkii 1998.